بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفر وناكسن daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha inaga mudan meel walbo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka afur wanaagsan ee Rajo TV. barnaamijka afur wanaagsan ee Rajo TV mowduuca maanta uga hadlayno waxaa ka mid ah waa maxay Misir, maxay tahay cuntada la dhaho Misirka, maxay Soomaalida u yaqaanaan Misirka. Misirka waa nooc ka mid ah cuntooyinka laga isticmaalo adduunka. Soomaaliduna waxay u taqaanaan digir ama cambuulo, dadka qaar ayaa dhaha. Haddaba Misirka iyo waxa uu yahay ayaan maanta baraneynaa insha Allah. Haddaba Misirka waa cuntooyinka caanka ka ah dunida looguna isticmaal badan yahay, khaasatan wadamada Aasiya sida wadanka Hindiya. Haddaba bini aadanka ayaa ogaaday cunista Misirka waqti hore oo aad u fog. Misirka ayaa ah cuntada kaliya ugu muhiimsan ee laga cuno wadanka Hindiya, isla mar ahaantaana ku sii faafay wadamo kale oo qaaradda Aasiya ka tirsan sida wadanka Ciraaq iyo Masar. Misirka ayaa waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan oo jirka u muhiim ah. Wuxuuna leeyahay midabo badan oo kala gedisan sida midabka la dhaho aqdarka ama cagaarka, midabka casaanka iyo midabka buniga ah oo ah midabka lagu aqoonsan karo Misirka. Waxaana loo isticmaalaa cunistiisa habab kala duwan, waxaana loo kariyaa qaabab aad u farsameysan oo kala duwan. Waxaana loo kariyaa badanaa sida maraqa oo kale, iyadoo ay jecel yihiin dadyooga caanka ku ah cunista Misirka, yar iyo weyn intaba. Sababta Misirka loo jecel yahay ayaa waxa ay tahay culimada nafaqada ee nutritionka ayaa waxa ay aaminsan yihiin in Misirka uu yahay cuntada ugu muhiimsan xagga nafaqada. Faa'iido badan oo xagga nafaqada ahna ay ku jirto Misirka dhexdeeda. Waxa uuna Misirka ka kooban yahay nafaqada dhirta oo aad u ballaaran sida plant nutrition. Nafaqadaasi ayaa jirka waxa ay u tahay muhiimad kala gedisan. Nafaqadaasi ayaa jirka wuxuu u leeyahay faa'iidooyin aad u ballaaran isagoona jirka muhiim u ah. Qolofta Misirka ayaa dadka waxa ay ka caawisaa calool istaaga ama wax la dhaho calool fadhiisiga. Inta badan waxaad arkaysaa dadkeena oo ka cabanaya amaba ka sheeganaya istaaga xagga caloosha. Haddii ay kugu badato fadhiisiga ama istaaga caloosha, waxaa yaraanaya qaadashada appetite-ka. Qolofta Misirkana waxa ay kuu fududeynaysaa socoshada caloosha. Haddii uu qofka calooshiisa ay socoto, waxaa u furmaya appetite-ka. Faa'iidada Misirka uu qaniga ku yahayna waxaa ka mid ah waxaa ku dhex jirta Misirka maadada loo yaqaan calcium-ta iyo birta. Sidoo kale Misirka waxaa ku badan borotiinka uu jirka u baahan yahay. Sidoo kale waxa uu hoos u dhigaa Misirka kolestaroolka. Cilmi baaris lagu sameeyay Misirka ayaa waxaa lagu cadeeyay in ay ka qayb qaadato hoos u dhigida amaba yareynta unugyada ku sameysma kansarka. Sidoo kale Misirka wuxuu ka qayb qaataa difaaca unugyada jirka isagoo yareynaya unugyada ka sameysma kansarka ku dhaca jirka bini aadanka. Sidoo kale daraasadani waxay ku talinayaan dadka ku sameeyay Misirka daraasada ayaa waxa ay ku talinayaan marka uu rabo qof in uu cuno bariis in uu isaga daro Misirka si ay isku buuxiyaan amaba Misirka iyo bariiskii ay iskugu dheelitirnaadaan. Sidoo kale wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u badan oo ballaaran oo aan la soo koobi karin. Wuxuu kaleeto Misirku u fiican yahay in uu qofku ku bilowdo afur ahaan in uu isticmaalo. Wuxuu u furayaa appetite-kii. Wuxuu sahlayaa dheefshiidka shaqadiisii in uu u wato si firfircoon. Misirka marka laga sameeyo waxyaabaha la dhaho shurabaadka ama mishaalida, wuxuu sahlayaa cabitaanka uu qofka markaas cabayo. Wadamada Carabtana waxaa loo yaqaanaa cadas. Sidaasi daraadeed inta badan dadkeena kuma baraarugsano faa'iidada uu Misirka u leeyahay jirka. Adduunka intiisa kale intii aan la ogaanin Misirka waxay u aaminsanaayeen in ay tahay cuntada dadka fuqarada, maadaama aysan haysan lacag ay ku iibsadaan hilibka
ayay waxay oran jireen cuntada dadka fuqarada ay isticmaalaan. laakiin gadaal dambe waxaa laga ogaaday misirka inuu yahay cuntada ugu borotiinka badan, ugu nafaqada badan, isla mar ahaantaana muhiimad ballaaran siinaya caafimaadka jirka. sidaasi daraadeed waxaa habboon dadkeena in ay dadka ku afuraan cuntooyin fudud, isla mar ahaantaana jirka u leh faa'iido. haddii aad cuntid cunto lid ku ah caafimaadkaaga, wax muhiim ah kuuma keenayso. misirku waa shay fudud sameyntiisa, waa shay raqiis ah, waa shay ka qayb qaadanaya in qofka abateedka uu u furmo. sidaasi daraadeed ha ka fakaraan dadka afurka sameynaya waxyaabaha faa'iidada u leh jirka, cuntooyinka ku wanaagsan in lagu afuro, cuntooyinka ku habboon xilliga ramadaanka dadka in ay cunaan. maxaa yeelay markii aad cunto fudud cuntid waxaad u cibaadeysanaysaa si fudud, waxaad u shaqaysanaysaa si fudud. sidaasi daraadeed barnaamijkeena afur wanaagsan intaan ayaan kusoo koobayaa. inta aan barnaamij midkan lamida ku kulmi doono, waa Aamino Macalin oo idin leh Ramadaan Kariim, afur wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.